madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay calaamasaarka jamhuuriyadda cusub ee koonfurta Suudaan waxaana ka soo ambabaxeen magaalada Juba ee xarunta wadanka cusub ee dunida ku soo biray madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ku sugnaa magaalada Juba ayaa waxay kulamo la qaateen madax ka duwan oo ka socota caalamka si ay ugu sheegaan qadiyadooda ugana dhaadhiciyaan mas'uuliyiintii halka iskugu timi madaxweynaha iyo wafdigiisa ay la kulmeen mas'uuliyiinta wadanka cusub ee koonfurta Suudaan iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan iyadoo ay madaxweynuhu sheegay inay wadanka koonfurta Suudaan ay meel badan kaga mid yihiin ayna soo mareen dhibaatooyin badan magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan ee wadanka cusub ayaa la circiiraysa boqolaal dadweynaha kuwaas oo isku soo baxay fagaarayaasha wadooyinka waaweyn si ay ugu dabaaldegaan maalinta uu dhalatay xorriyadda wadankaasi geesta kale waxaa ka mid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadda calaamasaarka oo maalintii shalay ay ka dhacday fagaaraha John Grant oo ku yaala bartamaha magaalada Juba madax fara badan oo ilaa 14 madaxweyne iyo 400 oo ergo iyo mas'uuliyiin iskugu jirta iyo sidoo kale madax kala duwan oo caalamka ka socota waxaana ka mid ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon madaxweynayaasha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaare Ato Mala Zanaawi madaxweynaha wadanka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir madaxweynaha wadanka Kenya iyo mas'uuliyiin kala duwan magaalada Juba ayaa laga dareemayaa farxad iyo raynrayn iyadoo dadka ku dhaqan magaaladuna aad gaabihaanba ka dareemaysid in ay la ilmeynayaan farxad awgeed waxaana calaamasaarka wadanka cusub uu imaanaya xilli ay mas'uuliyiinta wadamada Afrika ay gabiyahaanba sheegeen inay la shaqeyn doonaan garabna istaagi doonaan wadanka cusub ee ku soo biiray qaaradda Afrika ee noqon doona dalka 54 magaalada Juba oo ah magaalo aad u bilic badan oo dhinacyo badan ay ka maraan wabiyaashu ayaa laga dareemayaa dhismayaal iyo wadooyin hor leh magaalada Juba ayaa waxa laga dareemayaa sabxad ballaaran iyadoo dadweyne tiro badan ay wadooyinka yaacayaan kuwaas oo farxad awgeed meel kasta maraya waxaana magaaladu ay ku taalaa goob degan oo wabiyadu dhinac kasta ka maraan jawiga magaaladuna waa mid aad u degan marka la eego qurfa biyo ka maraan waana magaalo aad u qurux badan Juba marka aragtid dadka ku dhaqan waxa lagu qiyaasaa 1 milyan magaaladu waxay leedahay wadooyin waaweyn oo dhinac kasta ka mara iyadoo aad arkaysid in ay tahay caasimad dhismaysa Axmed Maxamed Jaamac telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel Juba South Sudan